gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada ee Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciiro ay wehelinayeen mas'uuliyiin ka tirsan xisbigaas iyo garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga wadani ayaa maanta kormeer ku soo maray garoomada ku yaala degmooyinka Maxamed Mooge iyo Maxamuud Haybe ee magaalada Hargeysa halkaasoo dhalinyarada ku ciyaarta garoomadaas ay sheegeen in birihii ay ku ciyaari jireen ee ku yaala garoomadaas ay xukuumaddu ka furatay waxaan kugu yeernay mudane gudoomiye saa arkaysaan garoonkan waxa laga jaray birihii labadii gool ee birihii ku taagnaayeen birtana way maqantay kuwa kalena way wada maqayeen waxaana ku ciyaarayay dhalinyartii mustaqbalka wadanka u ahayd oo ahayd inay xukuumaddu ay jihayso maanta sidoo kale waxaan aad iyo aad u hambalyeynaya muxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani iyo waliba gudoomiyaha golaha wakiilada oo maanta hoos soo eegay maanta saddexdii garoon ee degmada Maxamuud Haybe iyo waliba degmada Maxamed Mooge oo garoomadeedii ay wada yihiin bila biro maanta kooxaha degmadan waxa u badan A iyo B malaha ma jirto waxba yaraateed koox la eegayo inay wixii u kordhayay ha yaraato ama ha weynaato marka hore waxaan salaamayaa madaxweynaha halkan garabkayga taagan subaxnimeedkii baa soo toosna biriyo lagu gooyay bahalkan in lagu jaro looxaanta dabeetana dhagax mool baa lagu gooyay marka hadday askarta goosteen waa askartan qurac dheer annaguna dee imka biri waxa naga maqayn ilaa 3 bilood marka hore waxaan salaamayaa madaxweyne Ciiro madaxweyne waxaan ku rajaynaynaa guul annagu haddaanay dhalinyarada siilada dulmi baan ugu lahayaa kubadda markan ciyaarna waxa jiida askarana soo gasha meel walba habeenkii markan meel istaagna wana la xidhxidhaya dhalinyaradii xukun iyagoo fonforadii ka baxay baa la xukumaya dhikishana aan jirin baa lagu xukumaya badankoodii ma dheeray joogan anagu waxaan imaka halkan ka sheegaynaa afartii garoone degmada ku yaalay Maxamuud Haybe afartii garoon biraheedu waxa yaalan saldhiga qodhaadheerna ninka haysta waa taliya cabdikeed garoonka aanu taaganahay waxa weeyaan garoonkii Maxamed Mooge ee dawladii ina cigaal noo dhistay daahir yaalo uga dambeysay biri baa laga baxay wax kale lagu soo kordhiyay iska daayo Cabdiraxmaan Ciiro rajo weyn baan u qabnaa ka dhalinyar ahaana baahi weyn baan u qabnaa xaafadani mar walba way hadhay si kasta wax barasho ahaan way hadhay tartankii way hadhay dhalinyarta biyo ma jiraan wax kastaba maanta waynu ka hadhnay xaafadda Maxamuud Haybe Maxamed Mooge si annaki waa isku jiqbaanu nahay shaxdii bay nagu haystaa wax kala daayo wax amal la'aana ayay nala dultubayeen haddaan odayaashii nahay ha loo sameeyo nimanka dhalinyarta camal ay ku raaxaystaan ay ku shaqaystaan ay wadankooda ka qayb galaan garoomadan aan soo maray dhamaantood dayacba ka muuqday birihii baa laga gooyay haddaad aragto sababta biraha looga gooyay waxa kamid ah dhalinyaradii baa isku dishay waxay waayeen yacni cid kala hagtaa ama kala hagaajisa waxa laga jaray garoonkan biraha 3 sanadood ka hor wax looga jaray lama garanayo birihii cid goosatay lama garanayo garoonkan Maxamed Mooge waa garoonkii ugu horeeyay ee biraha laga gooyayba waa muddo in badan oo dhowr sano gaadhisaba garoonkaas bilaabiro ahaa birihii waa laga jaray dhalinyaradii ku ciyaari jirtayna waxay noqdeen laba qaybood bay u qaybsameen Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciiro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa xukuumadda Somaliland u soo jeediyay inay wax u qabato dhalinyarada Somaliland runtii waxaan joognaa hadda garoonkii afraad ee aan soo maray ee kamida Maxamuud Haybe iyo Maxamed Mooge ee biraha laga goostay odayaalka ka hadlay baa warka dhameeyay wuxuu dhalinyaradii markii laga goostay birihii shaxdii bay nagu haystaan buu marka meel ay ku ciyaaraan bay waayeen birihii ay ku ciyaari lahayn way waayeen waxay dhalinyarada aan ugu baaqaynaa qolooyinka ka goostay biraha inay biraha u soo celiyaan garoomadaanu soo marray bilaa biraha ah waa wax cusub hore ma maqal weligii ma maqal garoon bir laga goostay oo dawladdu ka goosatay birihii tuug hadii loo leeyahay tuug baa goosatay xamay haateen laakiin waxa leeyahay dawladdii baa goosato 3 sano ay biramay lahayn garoonkani waliba saq dhaxay goosatay bari saq dhaxay afartii habeenimo marka dawladda waxaan leenahay haddii garoomada waxba ku soo kordhinaynin oo roogii cagaarraa keenaynin biraha un haloo daayo biraha loo soo celiyo dhalinyarada waxaan iska samra
insha allah haddii xukuumaddu biraha soo celin weydo annagaa bira idiin keeni doona haddii la yidhaahdo. intaasi kadibna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo mas-uuliyiintii ku wehelinaysay kormeerkaasi ayaa meherad ku taala degmada maxamed mooge ee magaalada hargeysa halkaasi kula shahay qaar ka mid a dhallinyarada iyo waayeelka ku dhaqan degmada maxamed mooge iyagoona gudoomiyaha ku soo dhoweeyay dareen farxadeed. cabdiraxmaan cabdilaahi fantastic saab TV hargeysa.